waa munaasabad bilan oo boqran oo si heer sare loo soo agaasimay isla markaasna lagu taageerayo musharaxa golaha deegaanka degmada Gabiley Cabdiqaadir Maxamed Guuleed Camash oo habeennimadii xalay ka dhacday magaalada Gabiley. haweenweynaha gobolka Gabiley iyo haweenka xisbiga kulmiye ee Gabiley ayaa waxay habeennimadii xalay magaalada Gabiley ku soo bandhigeen taageerada buuxda ee ay u hayaan musharaxa golaha deegaanka degmada Gabiley Cabdiqaadir Maxamed Guuleed. haweenkan ayaa waxay muujiyeen sida ay u taageersan yihiin musharaxa iyo sida ay u jecel yihiin inuu Cabdiqaadir Maxamed Guuleed Cabdiqaadir Camash uu noqdo musharaxooda ku matali doono golaha deegaanka degmada Gabiley, iyagoo halkaasi ku soo bandhigay jacaylka iyo muhiibada ay u qabaan musharaxan hantay qulubta shacabka gobolka Gabiley. xafladan oo ahayd mid ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxay haweenkani shaaca ka qaadeen in ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin musharax Cabdiqaadir Camash dharaarta doorashadana ay codkooga siin doonaan. haweenkan oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen waxaan naqaanay weligeed musharaxiinta reer xareed weligood ma dhacaan maanta rasiyo kalaama diga rabaa ay taageerana inakeena Cabdiqaadir baynu taageeranaa maasha Allah bacala barkiisa waxa ku yaala dadka ka dhaxlaa kala qaranto maaha inakeena haweenidii awleena insha Allah billahi kariim inuu noqon doono musharaxiinta inoo soo baxaysa. waxa la idinka baayay sida walka u soo buuxiseen inaad cod kale u buuxisaan. maanta bayaan cad baa wadnaa, bayaan daacadna banaanka keenaa loo baahayay inamadan iskaxooda fayowdahay een hore waxba loogu soo feegarin ee siyaasadda u daayar ee aqoonyahanka ayaa loo baahayay inaynu soo saarno. waxaan maanta wadanaa xildhibaan siyaasi uga soo shaqeeyay hore dawladda loo maanta aan u ka wahayn inuu dawladda soo galo, marka waxaan u baahanahay inaynu lambarkiisa aad u eegno insha Allah. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. halka waxaynu maanta iskugu nibadnay Camash inaynu soo dhaweyno, inaynu taageero u muujino, inaynu cududeena tusno. waxa weeye sidaas aynu isku ognahay. Cabdiqaadir oo anoo wuxuu baan ugu faraynaa in bulshadaasi waxay heliyoba u garab taagan yihiin inay codkooda ku siiyaan oo ay halkaa ku keenaan. sababta ay ku keenayaan ma aha inaad raaxaysato ee waxay doonayaan waa inaad didido oo adiga laga arka meel walba. taasaan runtii aan ka filaynaa, waana ku ognahay kartideedana ku ognahay oo cilmigeedana ku ognahay oo waayo aragnimadeedana ku ognahay oo kaalintii aabo inaad buuxinayso Maxamed Guuleed baan ku ognahay. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee gobolka Gabiley oo taabacsan musharaxan. kullay caawa waxaynu u joognaa xafladii haweenweynaha gobolka Gabiley ay ku soo dhaweynayeen Cabdiqaadir Maxamed Guuleed Camash Gaangi dhalinyaro ahaan reer Gabiley rag iyo dumarba waxaan leenahay Cabdiqaadir waanu ku garab taaganahay, guushuna waa Guuleed. walaalayaal waxay doonaynaa in aynu maanta Cabdiqaadir u heelino si inoo u heeliyo waanu bogaadinaynaa beesha gaarka ah oo Cabdiqaadir ka soo jeedo maanta soo xulay Cabdiqaadir waxay soo xuleen creamkii community-gaasi. waan ku bogaadinaynaa Cabdiqaadir, waxaan ku leenahay soo dhawow, waanu ku garab taaganahay, heeliyo hoobaan kula garab joognaa. Cabdiqaadir Maxamed Guuleed wuxuu ka duway xildhibaanadii hore aynu u dooran jirnay. maanta isagoo cidi qacan qaban ayuu reer weyn ayuu maanta matala. sidaa maanta aynu soo buux dhaafinay inaynu maalinta cod kale u buux dhaafino oo inuu numberka 202 ilaahay inama qarin mar walba waynu sheeganahay 202 iyo maalinta ayaan isku ognahay. waxa maanta
bilic weyn iyo qurux badan aad u soo bandhigteen taageerista musharaxa maayirnimo ee mustaqbalka aynu doonayno maanta ujeedada aynu u dooranno ama doorbidkeenna weyn waxaa ka mid ah inaynu maanta meesha ugu sarraysa gobolka aynu qabsanno innagoo oo codkeenna siinayna cabdiqaadir maxamed guuleed camish gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay cabdiqaadir maxamed guuleed cabdiqaadir camish musharaxa golaha deegaanka degmada Gabiley waxaana uu haweenka uga mahad celiyay taageerada ay u muujiyeen isagoo oo sheegay inuu noqon doono haddii ay doortaan si dhaba ugu matali doono golaha deegaanka degmada Gabiley isla markaasina ka shaqayn doona inuu daboolo baahiyahooga inaan halkan uga mahad celiyo guud ahaan haweenweynaha gobolka Gabiley walaalayaal idinkoo maanta inta aad halkaa timaadeenba ay aniga hiil ii tahay oo ay maanta igu filan tahay inaad halkaa igu soo sharaftaan waxaan rabaa inaan maalinta codayntana aad intaa iyo in leeg aad igu sharaftaan oo bacadka aniga dartay u istaagtaan aniguna aan 5 sano marka aad muddo badan bacadka aad maalintaa aad bacadka ii istaagtaan ana waxaan diyaar u ahay ama aan ballan qaadayaa inaan 5 sano ana bacadka idin taagnaado baahiyiinana aan ka turjumo aanan idinku matalo isla markaana aan noqdo inaan halkaasi idinka dumar ahaan iyo dhalinyar ahaan idinku matalo isla markaana idinkuna aad codka aad igu helisaan oo aad igu taageertaan waxaan rabaa inaan magaaladan ka dhigno magaalo la maalgashado isla markaana loo soo guuro ee aan laga guurin waad mahadsantihiin dawayno iyo 31 bisha May oo ah maalinta codaynta waa maxamed cabdi cumar maxamed wadin warkurbaynta SBC gobolka Gabiley